maxaa maskaxdaada ku soo dhacaya marka aad aragto dhismo noocan oo kale ah Istanbul, Paris mise Doha? Haddaba ma ahan Istanbul mana ahan Paris, waa Muqdisho, gaar ahaan degmada taariikhiga ah ee Shibis. Dhismahan oo ay si heer sare ah u hirgeliyeen injineero u dhashay dalka Turkiga wuxuu leeyahay naqshad iyo tayo aad markiiba ka dareemayso albaabka laga soo galo. Marka aad soo gasho, waxa ugu horeeyo ay indhahaaga qabanayaan waa baarkin weyn oo loo dhisay qaab casri ah oo la jaan qaadaya kuwa caalamiga. Dhismahan waxa uu ka kooban yahay 19 apartment. Waxaad ka dooran kartaa guryo baahiyahaaga daboolaya oo isugu jira 3 qol oo waasac ah iyo 2 qol oo si heer sare ah loo habeeyay. qaabka korontada loo geliyay gurigan waa mid caalami ah. Unit kasta ee gurigan waxa ku jira RCD system kaas oo ah nidaam ka hortaga shilalka korontada isla markaana xoojinaya badqabka qoyska. Sidoo kale unit kasta waxa lagu rakibay intercom casri ah kaas oo kuu sahlaya inaad ogaato cidda albaabka taagan kor inta aadan ka furin albaabka. Jikada gurigan waa mid si heer sare ah loo qalabeeyay. Waxa lagu rakibay mashiinka qaaca dibadda u saara, waxayna leedahay qol loogu talagalay qasaalada iyo qalajinta dharka, taas oo leh daaqado waaweyn oo hawo wareeg wanaagsan leh oo uma baahnid in aad saqafka sare u aado dhar warista. Qaybtan waa meesha loogu talagalay in qoyska ay isugu yimaadaan xilliyada cuntada. Dhismahan wuxuu ku yaalaa goob istiraatiiji ah. Laamiga weyn wuxuu u jiraa hal boos oo kaliya, halka suuqa weyn ee Xayaat Market uu u jiro wax ka yar 40 mitir. Intaas waxaa dheer, qaybta hoose ee dhismahan waxaa loo diyaariyay gym si dadka degan ay u helaan caafimaad iyo jimicsi iyagoo aan ka bixin deegaanka ay ku nool yihiin. Hamoogaan fursadan qaaliga ah oo ay idin soo bandhigtay shirkadda Solia. Wixii faahfaahin ah kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo.